Halkan waa raadiyo Farsamo. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena Talada Dhibiga. 6 arrimood weligaa ha samayn marka aad rabto inaad seexato. Inaad heshid hurdo wacan. barnaamijka talada caafimaadka waa barnaamij aad u xiiso badan kalena soco radio Farsamo. Hurdo fiican si aad u heshid waxay u baahan tahay inaad dhowr arrimood samaysid hurdada ka hor. Dhowrkan arrimood ee hoos ku xusan ha samayn markaad rabto inaad seexato, maxaa yeelay caqabad weyn ayay ku noqon karaan hurdadaada wanaagsan. Dhowrkan arrimood ee hoos ku xusan ha samayn marka aad rabto inaad seexato, maxaa yeelay caqabad weyn ayay ku noqon karaan hurdadaada wanaagsan. 1. Ha isticmaalin smartphoneska iyo kombiyuutarka. Cilmi baaris badan ayaa laga sameeyay xiriirka ka dhexeeya hurdada iyo isticmaalada casriga ee tiknoolajiga sida smartphoneska iyo kombiyuutarada, waxaana lagu ogaaday in ilayska buluugga iyo midka cad ee ka soo baxa shaashadaha aaladaha tiknoolajiga sida kombiyuutarada iyo smartphoneska inay ka hor joogsadaan maskaxda inay soo deyso hormoon loo yaqaan melatonin, markaasna ay adkaato in qofku uu seexdo. Haddaba qaado talada ay bixisay Arianna Huffington oo ah aasaasaha iyo tifatiraha wargeyska The Huffington Post oo mamnuucday inay waxyaabaha elektarooniga ah habeenkii daalacato, waxayna samaysaa inay habeenkii buugaagta akhrisato. Ha qaadan dawada hurdada haddii aadan qabin cudurka hurdo la'aanta. Waxaa jira dad isaga fududaada qaadashada daawada hurdada. Waa khatar arrintaasi. Xarun la tacaasha xakamaynta cudurrada ayaa qiyaastay in 1 bil oo kaliya 4% dadka Ameerikaanka ah ay qaateen daawada hurdada keenta. Macnaha qaadashada daawada hurdada waxay jirkaaga baraysaa inuu la qabsado, mana kaa caawinayso inaad hurdo fiican hesho. Waxaa kaloo la sheegay in daawada hurdada ay keento xusuus la'aan. Sariirta dusheeda ha ku shaqayn. Khubaro ayaa ku taliyay in sariirta loo adeegsado shaqada loogu talagalay oo ah hurdada iyo xaajada qoyska, laakiin haddii sariirta dusheeda aad ku qabatid shaqooyinka caadiga sida isticmaalka tiknoolajiga, daawashada TV-ga, cunto cunidda iyo wixii kaloo la halmaala, waxay adkeynaysaa inaad hadhow u gamaadid si daran. Ha cabin kafee wixii ka dambeeya 5 galabtii. Daraasad ayaa sheegaysa isticmaalka 400 oo miligrams oo ah maadada caffeine oo laga helo kafeega inay aad u hor istaagto hurdada. Xataa dadka qaarkiis hadday kafeega cabaan 6 saac ee lasoo dhaafay habeenkii ma seexdaan dhaqso. Sidaa daraaddeed waxaa lagu taliyay inaadan kafeega cabin wixii ka dambeeya 5 galabtii. Ha cunin cuntada duxda badan leh. Xayrta ama xaydha ama duxda waa adag tahay inuu mashiinka calooshu shiido. Sidaa daraaddeed cilmi baaris ayaa ku talisay inaan gebi ahaanba wax la cunin 1 saac ama nus saac marka ay hurdada kaaga harsan tahay. Haddii aad fiidkii cuntid cuntada xayrtu ku badan tahay, waxay hor istaagtaa hurdada marna waxay abuurtaa hurdo aan fiicnayn oo caroosaad iyo qarow isku jira. Haddaba qodobkeena ugu dambeeya, ha jimicsan hurdada agteeda.
waxaa laga yaabaa inaad haysato wakhtiga ugu fiican intaadan seexan, laakiin khubarada caafimaadku waxay ku taliyeen inaan la samayn jimicsi xooggan fiidka, maxaa yeelay jimicsiga wuxuu siyaadiyaa heerkulka jirkaaga, taasoo adkeyn karta inaad hurdo wacan hesho. Waxaan ka soo xiganay businesssender.com. dhegeystayaal, waxaan halkan ku ekeenaynaa qayb ka mid ah barnaamijkeenii talada dhibiga oo aad kala socoteen idaacaddeenna Hirsamo.